kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si kastoo inaad daawanaysaan ku soo dhawaada Edlaw Sports Channel oo aad ka daawataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha kubadda cagta. qodobka ugu horeeya ee aan maanta ku soo qaadanayna waxa uu noqon doonaa xidiga ka tirsan kooxda Chelsea qadka dhaxana kaga ciyaara xulka qaranka dalkaasi Belgium-ka ee Eden Hazard oo 27 jira ayaa waxa uu sheegay inuusan ku qasbi doonin u dhaqaaqitaanka kooxda Real Madrid kooxdiisa Chelsea. hasaatee xidigan ayaa in badan ku celceliyay in ay tahay riyadiisu in mar uu ka ciyaaro garoonka Santiago Bernabeu Stadium iyo kooxda Real Madrid. hasaatee ciyaaryahankan Eden Hazard ayaa waxa uu sheegay in uu xushmeynayo taageerayaasha kooxda Blues Chelsea isagoona aan ku qasbi doonin ama cadaadis ku saari doonin in kooxdiisa Chelsea ay ka iibiso kooxda ka dhisan caasimadda dalkaasi Spain ee Real Madrid. hasaatee ciyaaryahankan ayaa waxa uu ka cagajiidayaa qandaraas kordhin ee usoo bandhigtay kooxda ku ciyaarta garoonka Stamford Bridge isagoona doonaya in kooxdaasi ugu dambeyn uu isaga tago kuna biiro kooxda ku ciyaarta maryaha cad ee Real Madrid. 23 jirka ka tirsan kooxda Portsmouth una dhashay dalkaasi Netherlands Nathan Ake ayaa meesha ka saaray inuu u dhaqaaqi doono kooxda Manchester United. daafacan da'da yar ayaana warar waxa ay la xiriirinayeen in laga doonayo garoonka Old Trafford. hasaatee Nathan Ake ayaa meesha ka saaray wararka xanta ah ee xidigan la xiriirinaya inuu ku dhaqaaqi doono kooxda Manchester United. dhanka kale kooxda Manchester United ayaa waxa ay u soo bandhigi doontaa golahayaha xulka qaranka dalkaasi Spain David De Gea qandaraas kordhin. xidigan 27 jirka ayaana waxa uu ka dhigi doonaa qandaraaskani midka ugu mushaaraadka badan kooxda ku ciyaarta garoonka Old Trafford. ciyaaryahankan ayaana qandaraaska uu kooxda iminka kula jiro waxaa ka dhiman oo keliya hal sano. hasaatee Manchester United ayaa rajo weyn ka qabta in xidigani qandaraaskiisa ay kordhin doonto waxaana ay diyaar u leeyihiin in mushaaraad ka badan lacagaha uu qaato Alexis Sanchez in ay u gacan geliyaan golahayahan u dhashay dalkaasi Spain. xidigan ayaana noqday 4 ka mid ah 5 sano ugu dambeysay xidigii ugu wanaagsanaa ee kooxda Manchester United. golahayaha u dhashay dalkaasi Ingiriiska ee Tom Heaton oo 27 jira ayaa waxa uu ka dhawaajiyay inay suurtagal tahay in kooxda Burnley uu iskaga tago bisha January. xidigan ayaanan u ciyaarin kooxda Burnley tan iyo markii uu dhaawac halis ka soo gaaray bilowgii sanadkii hore dhanka garabka waxaana iminka ciyaaryahankan booska koowaad kala baxay golahayihii hore ee kooxda Manchester City John Harty oo iminka ah golahayaha koowaad ee kooxda Burnley. ciyaaryahankan ayaana doonaya inuu dib ugu soo laabto xulka qaranka dalkaasi Ingiriiska isagoona raba koox uu ka helayo booska joogtada ah. Arsenal ayaa waxa isku diyaarinaysaa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka ka tirsan kooxda Rennes garbahana kaga ciyaara xulka qaranka dalkaasi Senegal ee lagu magacaabo Ismaila Sarr oo 20 jira iyo 19 jirka qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Bayer Leverkusen una dhashay xulka qaranka dalkaasi Jarmalka ee Kai Havertz. labadan xidig ayayna doonaysaa in garoonka Emirates Stadium ay u soo boqoliso xil ciyaareedka soo aadan. xidiga garbaha ka ciyaara ee u dhashay dalka Switzerland Shardan Shaqiri oo 27 jira ayaa waxa uu sheegay in bilowga nolosha magaalada Liverpool iyo kooxdaasi Reds uu u arkayo inay tahay mid aad u dhib badan, laakiin waxa uu sheegay in ay tahay waxaasi wixii uu markii horeba uu ka filayay in xaalku uu sidaasi uu noqon doono. xidiga weerar kaga ciyaara xulka qaranka dalkaasi Bosnia Herzegovina kooxda Romana ka tirsan Edin Dzeko ayaa sheegay inuu u furan yahay inuu dib ugu laabto horyaalka dalkaasi Ingiriiska ee Premier League, laakiin waxa uu ka dhawaajiyay inay macquul tahay inuu yahay waqtiga mid aad u dambeeyo. 27 jirkan ayaana ka soo muuqday 189 jeer 5 sano oo ku sugnaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City. xidiga u dhashay dalkaasi France qadka dhexana ka ciyaara ee Timo Bakayoko oo 24 jira ayaa macquul ah inuu dib ugu soo laabto kooxdiisa Chelsea
kadib markii kooxda AC Milan ay ugu cawjugleysay in ay kansari doonto heshiiska amaahda ah ay iminka kula jirto sabab la xiriira xidigan oo ciyaarihiisu aad u liitaan. xidiga Belgium qadka dhexe kaga ciyaara ee Moussa Dembele oo 30 jira ayaa iska diidi doona qandaraas kordhin ay doonayso kooxda Tottenham si uu ugu dhaqaaqo si bilaash ah horyaalka Shiinaha ee China Super League xilciyaareedkan marka uu soo idlaado. kooxda Inter Milan ayaa waxa ay soo celin doontaa xiisaha ay u qabto xidiga ka tirsan kooxda Real Madrid qadka dhexena kaga ciyaara xulka qaranka dalkaasi Croatia Luka Modric oo 33 jira kadib markii ciyaaryahankan uu ka dhawaajiyay in uusan ku faraxsanayn ka ciyaaritaanka garoonka Santiago Bernabeu Stadium iyo caasimada dalkaasi Spain ee Madrid. tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola ayaa waxaa macquul ah in maalin uu u dhaqaaqo horyaalka dalkaasi Talyaaniga kadib markii uu ka dhawaajiyay inuu u furan yahay inuu halkaasi tababaro uu ka noqdo. Guardiola ayaana dhan kale waxa uu sheegay inuusan garanaynin in kooxda Manchester City ay diyaar u tahay ku guuleysiga tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League xilciyaareedkani. tababarihii hore ee kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich ayaa sidoo kale si weyn u ammaanay halyeegii hore ee xulka qaranka dalkaasi Netherlands Johan Cruyff isagoona sheegay in uu indhaha u kala furay qaab-cireedka wanaagsan ee iminka kooxda Manchester City uu ciyaarsiiyo tababare Pep Guardiola isagoona sheegay in tababar kasta uu kala qayb galay Johan Cruyff inuu ahaa adigoo iskuul aadaya oo kale isagoona aad kaga mahad celiyay qaab-cireedka wanaagsan ee iminka kooxaha uu leeliyo ciyaarsiiyo oo ay dadka si weyn u jecel yihiin in uu fikradeeda iska lahaa halyeegii hore ee xulka qaranka dalkaasi Holland ee Johan Cruyff.